wafdi ballaaran oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda horumarinta Soomaaliland ayaa soo gaaray degmo xuduudeeda Togwa Jaale. Barasaabka gobolka Gabiley iyo maamulka Togwa Jaale ayaa ku soo dhaweeyay albaabka laga galo degmo xuduudeeda Togwa Jaale. Wafdigan ayaa ujeedada socdaalka ugu daaray xogogaal noqoshada wadada dheer ee isku xidha Berbera Koodroor ee isku xidhi doonta Berbera iyo Togwa Jaale. Kulay seenu ka warqabno dekadii Soomaaliland oo dhismaheedii dhamaaday iyo wadadii oo meel gabagaba maraysa iyo Wajaale oo ah iyadna meesha saddexaad ee xiriirinaysa bay u socdeen arrinkii corridorka iyo inay informationkii daraasaadkii halkii uu bypassku ka talaabayay iyo inay eegaan asa technical ahaan ay u yimaadeen. waxa ay halkan waftigan ballaaran u socdaa waa xogogaal waraysi iyo raadraac ama jihayn Berbera Corridor sida u socdo iyo sida looga duulayo hawlqabadka iyo dhulkii loo baahnaa haday noqoto wadadii hadii ay noqoto parkingkii gaadiidka waaweyn ee xamuulkiis dhaafeen la dhigayay iyo hadii ay noqoto free zone-kii dhulka ay degayaan kambaniyada waaweyni ee warshadaha. waxay tahay marka mashruucan oo kale socdo intii aan hawlaha la gudagelin in gogol xaad loo sii sameeyo sidii hawsha loo gudageli lahaa. aad iyo aad baana ugu mahadsantihiin hawshan maadaama oo la gartay dawlad ahaan in ay dhadhowdahay wadadii Berbera Corridor si loo dedejiyo wax kasta oo ay u baahan tahay maadaama ay noqonayso degmada Togwa Jaale xudunta ugu muhiimsan ee Berbera Corridor. annagu guddigii corridorka sida loo ogyahay corridorka badankiisii oo bilowgiisu ahaa dekada Berbera in hawshiisii gabagaba ay tahay dariiqna meel fiican marayo haddii mariinkii inagu xidhayay meelaha aan u jeedo waa dawladda Itoobiya the population ka inta leegsan loo sheegay oo bacbasharigeenu aad ugu xidhan yahay haddii cunaha uu ka xidhan yahay waxa weeye waa boogtahay wixii aan u jeeday uu dhaawacan yahay marka sababta aan iman waxa weeye inaan isla eegno aan isla daraasayno wax ka qabadkeedii aan bilowno arrimaha muhiimka ee ku xidhan Wajaale in haddii aan nahay qoladii corridorka ama trademark ka noqoto ama afarta wasaarada khusayso ha noqoto iyo maamulka gobolka iyo degmada aan arinta aan baqaadno si degdegana hawsheeda aan u galno wadadii ha noqoto dhinac kasta waa waxyaabaha loo baahan yahay ku dhan. ujeedada aanu nimi waxay ahayd inaanu maamulka gobolka iyo ka degmadaba xog isweydaarsanno ku saabsan waxyaabaha looga baahan yahay in la qabyo tiro ee ku xidhan gobolka iyo maxaan raahdaa iyo degmada. ujeedada aynu ka leenahay waxa weeye in Wajaale noqoto magaalo ganacsi magaalo marin magaalo wax soo saar amba warshadeed. himilooyinkaas aynu ka leenahay magaalada waxay xaqiiq noqon karaan oo dhaqan geli karaan marka qaybta kaga aadan Wajaale mashruuca corridorka aynu qabyo tiro si markaa himiladaas aynu hanano waxaynu u baahanahay in aynu helo an industrial zone amba halkii warshadaha laga sameyn lahaa. waxaynu u baahanahay inaynu helo halkii baabuurta faraha badan ee labada dhinacba ka imanaysa ay ku nasan lahayd amba loogu adeegi lahaa amba park loogu sameyn lahaa. waxaynu kaloo u baahanahay wadadii baynu u baahanahay ka beereysay magaalada bartankeeda ee fududeysay baabuurta faraha badan leh inaanay zaxmad ku keenin magaalada. waxaanu u baahanahay isaga laftigiisa suuq yare loogu talagalay ganacsiga yaryar in iyada lafteeda la sameeyo. marka afartaas baa kaga aadan mashruuca horumarka corridorka magaalada Wajaale oo aynu u baahanahay ka hirgelino. kulankaygii ku soo gabagabeynay oo ku soo gunaanay waxaan isla garanay afartii ahmiyadda ay leeyihiin waxaanu ku soo gabagabeynay isla garanay in guddi laba geesooda la sameeyo qaybta gobolka iyo degmada iyo qaybta guddida corridorka guddi farsamo la saaro wiiga soo socda la magacaabo guddiyadaas
dabeedna wiiga ku xiganay way wada fadhiistaan qorshe hawleed ay ku soo celiyaan guddida saas baan runtii ayaan ku talagalay waxaan doonayaa inaynu arrinku inaanu noqonon riyo iyo ka hadal iyo isu bedelo ficil Musa Hussein Hassan Zom News TV gobolka Gabiley